tuulooyinka Mareere iyo Baaroweyne ayaa waxa ay ka mid yihiin tuulooyinka dagaal beeleedkii ugu dambeeyay ay ka dhaceen gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana dhawaan booqday xubno ka tirsan labada gole ee Hiirshabeelle iyagoona beelaha ku diriray halkaasi ka codsaday in ay dagaalka ay joojiyaan hadaba mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku sugan tuulooyinkaasi ayaa waxa uu sheegay in diyaar u yihiin in ay qaataan nabadda isla markaana ay ka shaqeyn doonaan amniga tuulooyinka dagaalada ay ka dhaceen waanu ku mahadsantihiin hadduu ilaahay maadihin wixii dib u dhacayna ilaahay xaqiisa ay ka dhaceen hadda imid la joogo waxaan jecelnahay in aan nabad ku dadaalno wasiirka wasaaradda beeraha dawlad goboleedka Hiirshabeelle Xasan Axmed Muude ayaa waxa uu ka codsaday beelaha dirirta ay dhex martay in ay joojiyaan dagaal beeleedka isla markaana miiska wada hadalka ay isugu yimaadaan maanta waxaan soo gaarnay tuulada Mareere dibkii dhacay shalay inaan ka tacsiyo gudano haddaan nahay xukuumaddii Hiirshabeelle iyo xildhibaanadii odayaashana si fiican ay noo soo dhaweeyeen warkii aan u keennana waa qaateen hadda waxaan ka nimid tuulada Baarow haddana waxaan u nimid Mareere ayagana waa qaateen waxaan rajaynaynaa dib dambe inuu dhicin assalaamu calaykum waraxmatullaahi dagaal beeleedka ayaa salka ku hayay dhul daaqsimeed iyadoona beelahan maalmihii ayna soo dhaafnay muran u dhaxeeyay isla markaana sababay in gacan ka hadal uu yimaado Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV Kalsan Jowhar